ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wuxuu alle dhexdiina yeelo kale mawadda kalgacal alxub waa waxyaabaha gurigu ku abuurmaba kalgacalku ama jacaylku waa ashyaada koowaad ee dhismaha guriga qayb weyn ka qaadata xubbigu waa waxa keena alcadaala walithaar waa waxa keena inuu qofku naftiisa cid kale ka horumarin karo kalgacal uu qaba daraaddeed waxaan leenahay marka hore guriga in la helo waa ahmiyad aad u weyn noloshuna sideedaba ilaahay baa wuxuu leeyahay wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayn lacallakum tadakkaruun shay walba labaanu ka abuuray ama lamaane waxaa mudantiin baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala inaa wax garataane waxaan leenahay gurigu marka kow ama guurka waxa loo yaqaanaa waa madrasa ama waa dugsi lagu sameeyo ummadda meelaha lagu aasaasiyo koowaad waxaa ka mid ah guriga walidaalika baa guurku uu yahay sunnadii nebiyada ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya walaqad arsalnaa rusula min qablik wajacalnaa lahum aswaajan wadurriya walaqad arsalnaa rusula min qablik ilaahay baa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku leeyahy waxaanu soo dirnay rasuullo adiga kaa horreeyey wajacalnaa lahum aswaajan wadurriya waxaanu u yeellay baa ilaahay leeyahay haween iyo dhalba waanu u yeellay waa sunnat alambiyaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii buu nebiguna ku sheegaya calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa ahaa ee nimankii raahibnimada isku dayayey waa kii u tilmaamay anugu waxna waan cunaa waanan soomaa waan seexdaa habeenkii waanan toosaa dumarka waan guursadaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii sunnadaydaa cidda khilaafta aniga igama mid aha buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waa madrasa ay ambiyadu hogaaminayaan waa dugsi laga soo saaro bini aadamka kow waa dugsi qofka bini aadamka ah lagu baro waxyaabaha keena inuu bulsho jiri karto ama mujtamac inuu jiri karo waa dugsi lagu baro qofka bini aadamka mas-uuliyadda iyo maamulka waxa loo yaqaano waa dugsi lagu baro qofka bini aadamka daacada iyo kala dambaynta waxa loo yaqaano waa dugsi lagu baro qofka bini aadamka alxub walithaar kalgacalka iyo inaad naftaada cid kale ka horumariso waa dugsi lagu baro qofka bini aadamka alcadaala iyo qaabka uu baahan yahay bini aadamka loola dhaqmo waa dugsi lagu baro qofka bini aadamka alkhuwa walmusaawaat walaalnimada iyo midnimada waa dugsi qofka muslimka ama bini aadamka lagu baro atakaaful in lays kafaalo qaato oo lays xoojiyo waa dugsi lagu barto alidaara in wax la maamuli karo haddaad guri maamuli kari weydo ummadna ma maamuli kartid waa dugsi iska dhan oo qofka si fiican uga soo baxa gabadh iyo wiil miduu doonaba ha ahaadee ay tahay inuu bulshada wax tari karo hadduuse kan ku guulaysan kari waayo waxa adag bulshada kalena inuu wax kaga guulaysta waa iska adag tahay idan waxaan leenahay waa sida dadku ay uga fakeraan gurigu maaha dadku had iyo goor marka guri la soo qaado galmo iyo gabadh qurux badan iyo guurkeeda iyo intaasunbaa caqliga dadka kusoo degdega laakiin intaa maaha intaasi waa wax ka mida waxyaabaha lagu hayo laakiin waa waxaad uga ballaadhan saa daraaddeed waa wax u baahan inaynu in badan daraasayno waa qadiyad runtii aan odhan karo gaar ahaan dadka yurub yimid dawlado iyo waxba toona ma haysataana inaynu si fiican u daraasayno oo u ilaalinay ku xidhantay weliba jiritaankeenna dambe inaynu ummadahan sii dhex joogi karno ama dad jira sii ahaan karna wuxuu ku xidhan yahay inta aynu guriga ahmiyad siino iyo sida aynu u dhisno iyo sida aynu uga shaqayno sida daraaddeed waxaynu u baahan nahay mas'alada tan inaan la fudaydin inay noqoto mas'alo u baahan aqoon iyo barasho mas'alo u baahan weliba waxaan ku celinayaa aqoon iyo barasho sababta waxay tahay markaynu waddankii joognay waddanku wuxuu lahaa dhaqan iyo hidde dad waaweyn oo waayeela baa joogay aabbiyo hooyo iyo adeer iyo in adeer iyo dadka room baa joogay dad tajaaribta kaaga soo horreeyey baa joogay qoysku markuu dhismo talay ka bixin jireen sida loo guursanayo cidda aad la xidhiidayso cidda aad ka guursanayso gabadha la guursanayo inanku goortu guursanayo inanta hooyadeed waxay soo siin jirtay tarbiya aada u ballaadhan oo maalintay dhasho waa taqaanin taariikhda soomaaliga ama islaamaha soomaaliyeed waxay ku heesi jireen inan yaroo gujiray ugu heesaysa yacni inay gabadh noqon doonto la guursan doono caynkan ay ahaan doonto tarbiya bay ahayd ilmahan lagu tarbiyaynayo say guri u samaysan doonto inanta tani inanka si leegoo kale iyadoo ay ku salaysantay tarbiyadaasi ahdaafta laga leeyahay guurka iyo bulshada laakiin halkan dadka inta badani waalidkiina waa laga yimi dadkii waaweynaa tajribada lahaana waa laga soo guuray hadday joogaanna wax lama weydiiye carruurta iyo waxa kan iskuol baa loo diraa meel baa lagu mashquulsayey aqoontan dadkuba inay helaan way adkaatay awal waxay ahayd aqoon lagu helo can ariiqi tajriba laakiin imika waxaa leeyahay taa la waayo waa inay noqotaa aqoon lagu helo maxay can ariiqi daraasa inaad baratid weliba waan ku celcelinaya arrintaasi waxaan leeyahay waxay u baahan yihiin habliyaynaba in koorsooyin kuushasha laydinka saaro intaydan guursanin oo dhallinyaradu inay koors qaadato diineed iyo aqoomeed iyo tajribeed
oo ah guurkiiyo wuxuu macno leeyahay. ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegayaa subxaanaه wa tacaala wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadata waraxma ina fii dalika laaayaati liqowmin yatafakkaruun. ilaahay aayaadkiisa iyo calaamaadkiisa waxaa ka mid a waxyaabaha lagu garto alle subxaanaه wa tacaala ee calaamaadka waaweyn ee alle loo daliishado waxaa ka mid a an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja, inuu ilaahay naftiina idinka abuuray lamaane. maxaa loo abuuray? litaskunuu ilayha mas'alati sakan baa ilaahay tilmaamay inaad ku xasishaan. asakan min asukuun waa طumaaniina, waa deganaan iyo xasilooni. qofka bini aadamka ah ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ku abuuray alghariiza aljinsiya. qofka bini aadamkii nin iyo gabadhtoona keligii ma noolaan karo, way dhib badan tahy. wuxuu u baahan yahay khariisadiisan jinsigaa inuu guto. qofka bini aadamka ahi kuma gudan karo azina alcaabira, zina iyo wax la midi maaha wax lagu dego. insaanku wuxuu u baahan yahay inuu xasilo oo dego. guurka macnayaashiisa koowaad waxaa ka mida markaa inay qofku helaan aطuma'niina ama xasilooni in la heli karo. طuma'niinada iyo xasiloonidu waa shay ka qaalisan cunnada, inuu qofku dego oo uu xasilo. idan gurigu waa alle subxaanaه wa tacaala siduu ku sifaynaya waxa weeyaan meel lagaga nasto mashaakil alxayaa kullaha. qofku noloshan kale iyo dhaqamo kale markuu soo arko, soo shaqeeyo, mushkilaad badan la soo kulmo, meeluu u hoydo oo uu ku dego oo uu xasilooni ka helo si uu berrita nolosha haddana wax kale uga bilaabi karaa ama shaqo kale. idan guriga gebigiisuba macnaha koowaad ee ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya waxa weeyaan waa masalatu sakan, meel lagu xasilo inuu noqdo. wajacala baynakum mawadata waraxma ina fii dalika laaayaati liqowmin yatafakkaruun. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanaه wa tacaala wuxuu alle dhexdiina yeeloo kale mawadda, kalgacal. alxub waa waxyaabaha gurigu ku abuurmaba. kalgacalku ama jacaylku waa ashyaada koowaad ee dhismaha guriga qayb weyn ka qaadata. xubbigu waa waxa keena alcadaala walihaar, waa waxa keena inuu qofku naftiisa cid kale ka horumarin karo, kalgacal uu qaba daraaddeed. waxaa kaloo ilaahay ku tilmaamaya raxma. raxmaduna waa ra'fa, waa riqat اlqalb. waa inuu insaanku isku dayo maxay? at least hadduu waayo mawadada inaanu raxmada ka tegin, inaanu cadaaladda ka tegi karin. waxaan leenahay sida daraaddeed ayuu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ugu yeedhayaa dadka dhallinyareed si ay nolosha xasiloonideeda u dareemaan inay hore u guursadaan. xadiidkii صaxiixa ahaa ee bukhaari iyo muslimba ku yaalay muxuu nebigu laha alayhi الsalaatu wasalaam waa wada garanaysaan intiina badan. yaa macshar الshabaab man istaطaaca minkum اlba'a falyatazawaj. wuxuu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam war dhallinyaroy cidda awooda alba'a yani taklifatu ziwaaj, cidda awooda, cidda guursan karta ee dhaqaale ahaan ay u saamaxdo guur inuu samayn karaa, falyatazawaj buu nebigu yidhi, kaasi ha guursado. fainahu agadu lilbasar wa axsanu lilfarj. wuxuu nebigu ku tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam isha inuu u dhowrsooni badan yahay, oo farjiga u xifdi badan yahay, o u fiican yahay, oo nolosha u wanaagsan yahay. ciddii kaa weydaa buu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam cibaadaha ku bedelo ah cibaadatu sawm, inuu sawmo, waayo taasina waxay ka mid tahay waxyaabaha nafta lagu xakameeye. nafta waxyaabaha lagu xakameeyo ayay ka mid tahay. nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa in badan guurku inuu fiicayo dadku ay guursaan. bal ilaahay baa qur-aanka wuxuu inoogu sheegayaa cidda xataa dhaqaale ahaan ay u suurto geli weydo inay guursato, mujtamacu inuu xilka qaado inuu u guuriyo. qofka dhaqaale ahaan ay u suurto geli weydo, وأnkixu الأyaama minkum والصاalixiina min cibaadikum وaimaa'ikum in yakunuu fuqaraa yugnihum اllahu min fadlih wallahu waasicun caliim. ilaahay baa wuxuu qur-aanka ku leeyay وأnkixu الأyaama minkum والصاalixiin, u guuriya addoomihiina rag iyo dumarba kuwa fiican ee saalixiintaa u guuriya hadday yihiin baa ilaahay yidhi kuwa foqoro aan waxba haysan. yugnihum اllahu min fadlih, idinku u guuriya baa la yidhi ilaahay baa fadligiisa wax ka siin doone. ilaahayna waa waasicun caliim, sifadaasuu leeyahay. yani waa boorin oo alle subxaanaه wa tacaala ku dhiiri gelinayo bulshada muslimka ee xataa dadka addoonta ama dadka aan waxba haysanin ama dadka foqorada ah in loogu tabaruco, oo xataa min miisaaniyati dawla haddii xataa shakhsiyaadku ay samayn kari waayaan, culamadu waxay dhahdaan waxyaabaha loo baahan yahay dawladda muslimka inay qabataba ka mid yahay in dadka kan loo fudaydiyo si allaaliyo sidii ay u guursan lahaayeen.
waxaynu naqaanaa bayt lmuslim oo guurku inuu asal ka mida yahay waxyaabaha lagu dhowro bulshada taranteeda iyo jiritaankeeda, waa ilaa dee bulshadu waa dabar go-aysa haddaanu kana dhicin. waxaan leenahay guurku waa meesha lagu barbaariyo khariisat alubuwa waalumuuma, aabanimada iyo hooyanimada, oo ah bulshadu waxay u baahan tahay. waa meel la-aanteed noloshu ay aada cidhiidhi u gelayso. waxaan leenahay guurku markaasi waa mas-uuliya, waa mas-uuliye rag iyo dumarba saaran, waa mas-uuliya uu u baahan yahay qof kastaoo muslimi inuu qaado si uu tuka weynna u qaadi karo. walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya xadiidka saxiixa ah, kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raaciyatih. qof wal oo dadka ka midiba in wax la raaciyey, qof walbana in qiyaamaha la weydiin doono waxa la raaciyey. yacni qof walba mas-uuliyad xadi inay saarantay. haddaad rabto bulshadu inay noqoto bulsho ama ummad responsibilityga taqaana, ummad wax maamuli karta, ummad dulqaad yeelan karta, ummad waxaad ku qiimaysaa un siday guryaheeda u maamusho, siday u hogaamin karto. ninku hadduu guriga si fiican u hogaamin karo, wax ka badanna wuu hogaamin karaa. haweentu hadday guriga si fiican u dhiqi karto, waxay tilmaamaysaa yacni inay waxqabad tahay.